هاتنا dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington waa tan Sahar Ciidla Nuur oo noo soo diyaarisay haatan aynu gudagal la qaybtii heesaha iyo madadaalada fanka waxaan waraysi la yeeshay abwaan xasan dhuxul absaalax oo ah abwaan dhalinyaro ah isla markaana waayahan dambe qayb laxaad la ka qaata horumarinta iyo soo saaridda fanka Soomaaliyeed iyo heesaha ay dhalinyaradu qaado qaybtii koobaad ee waraysigiisa hay noogu bilaabo markii ugu horeysay ee erayo hal abuuray Sahar Ciidla aadan ku salaamaya waan ku soo dhawahay fiyeeda aadna waan niga mahadcelinayaa sida wanaagsan ee ila soo xidhiideen salaamatiisa horeen sidaanta sameeyo waxay ahayd waqtigii 2006 oo aan karo waa waqtigii aan fanka soo galay waqtigaana waxaan ku noolaa dalka South Africa marka ma hees baad samaysay mise gabay baad samaysay markii kuugu horeysay ee erayo curiso waxaan sameeyay ma hees jacayl ay ahayd mise hees waayaha South Africa ka waramaysa mayna hees jacayl ay ahayd waqti inka heestaasi waa hees kamid ah heesaha caanka ah ee mursal qaado oo markaan hargeysa imiday aan u diiday laxankeedana uu leeyahay in la yiraahdo Cabdiqaadir Silsilo waqti la yiraahdo waa tahay waqti waxa ay heesiyan ku sameeyay dalka South Africa inta badan midada badan hayay waa hees hadalka laba qof oo xiriir ka dhaxayn jiray oo xiriirkii ka dhaxeeyay uu xagal daacay ama lumay ama meeshii ka baxay marka inkastoo wanaag iyo helkaasi waayay inkastoo waqtiga qaar kugu weehan jiray markaad wada jirkeeni iyo reeydaysan waxay ka calool go'ay waayihii iluri jiray hadii weyda ka dhigay markuu wanaag ku ekaa wataadiga weecatee caashqa warkiisa iyo warigiisa ilaa arag dhaxaan warwareeyay inkastoo wanaagiyo wixilka sugayo inkastoo waqtiga qaar uu yahan jiray wada jirkeeni wiiqday gardaysan wixii ka calool go'ay markaad wada jirkeeni wiiqday gardaysan wixii calool go'ay waayihii luri jiray adduwida ka dhigay markuu wanaag ku ekaa wataadiga weatee waayihii luri jiray hadduwida ka dhigay markuu wanaag ku ekaa wataadiga weatee cashaqa warkiisiyo welidiisa ilaaraan dhaxaan walwalaayay cashaqa warkiisiyo welidiisa ilaaraan dhaxaan walwalaayay waa tahay marka heestaasi waxaad sheegtay inay tahay heestii kuugu horeysay 2006 aad hal abuurtay ma qiso adiga kugu saabsan bay ahayd mise qiso qof kale aad la wadaagaysay oo aad suugaamaysay bay ahayd waxay ahayd waayaha nolosheeda kulli kale kama maqnayn marka mar hadiiba ay ahayd heestii kuugu horeysay kulli kulayl adiga ku taabtay unba heesta ka keenay soo sidaa ma oran karno aad iyo aad heestii jeebkaad ku ridatay maad baahin heesa kale ayaad bilowday inaad soo saarto oo la dhageysto beri dhow ayuuna qaaday mursal heestaasi waqti marka heesa kale ayaa ka dambeeyay heestaasi waqti maalintaasi waxa ku xaqiiqsanaatay sidaan filayo inaad erayo sameyn kartid ma qisadii uu heesa la xidhiidha ayaad sii waday
mise waad bedeshay laynka oo heesa kalaad markaa hal abuurtay maxaa ku xigay socod baradkaagii hal abuurnimo waxaa ku xigay heesa kale oo aan inta badan aniga igu turjumayn oon gasahaan ku siin waata waxaa ku xigtay hees kaloo isla mursal u qaado nafku jecel la yidhaha nafku jecel miyaa nacab loo noqdaa niyadiyo qalbiga naxdi laga gasaa nafku jecel miyaa nacab loo noqdaa niyadiyo qalbiga naxli laga gashaa nasiibkeeda maqan la nagaadiyaa nasiibkeeda maqan la nagaadiyaa daruurada miyaa ruux adiga ku nugul lama taaqiyaa daruurada miyaa ruux adiga ku nugul lama taaqiyaa كنا ويلون كنا نادي إلى نور الغداء نفطر يقول لبي كنا ويلون كنا نادي إلى نور الغداء نفطر يقول لبي واتر labadii kun iyo saddexdii man dalka ilaa South Africa tagay ilaa 2009 baan maxay ku noolaa 2010 Nairobi baan ku noolaa afkii ama dhamaadkii dambe 2010 baan waxaan imid Hargeysa heesaha ugu badnaa Hargeysa markaan imiday Hargeysa halka fankaygu ka hana qaaday marka muddada aan South Africa ku noolaa taan Nairobi aan ku noolaa inuu Hargeysa ku noolahay fankaygu kala duwanaa waata muxuu yahay markaa farqiga u dhaxeeya ugu dambeeyay sanadadii ugu dambeeyay heesahan sameeyay waxaan noqday heesahan qaada xasan ma taqaanaa ilaa maanta oo aan waraysigan ka qaadayo tirada heesahaagu inta yihiin xalay toole fiiskii markay xagayga ka ahayd 10 saacada bariga Afrika markii aad igu soo wargelisay in barnaamij ila yeelanayso ayaan qadan iyo warqad qaatay waata waxaan isku dayay bal inaan tirada guud ee heesaha aan sameeyay sugo waxa laga yaabaa inaan maxay qaar ka tagay laakiin celcelis ahaan heesaha aan sameeyay waxaan ku soo ururiyay sahraay 60 heesood 60 ka heesood 49 kamida ayaa noqday heeso caana waan gartay waxa jira heeso kale oo aad u dhiibtay fanaaniin kale hees kale oo aynu ku nasanaa haddaad inoo soo qabato xasan hadda waxaan jecelahay fanaaniin fara badan baan heesay sameeyay kooxda xidigaha jeeska oo kale magacaankooda waan xusi doonaa laakiin daawud cali masxaf kamida محمد عبد العال كمية خبيث فوري فنانين وين بدنا صاحبتي عبد الجليل كمية هاي وعوالة كمية هاي وعبد الفتاح كمية يرى كمية هاي وفتة كمية هاي فنانين تفرح بدنا له بس كمية هذا سوق بتروح سوق بدنا لها عوالة هاي سفرة بدنا ما نبيه هاي لا داحان محيته معنى هذا waxay ka hadlaysaa waxa la arki jiray Nairobi markaan joogay heesa u dhiibay hees waxay ka hadlaysaa ninkii guursaday oo gabadhii la hadlayo uu leeyahay maxay ahayd safkarashadeenii nasiibka ay dhiyo ayaheenii gabay hayeeshee adduunyada urubiyo dhib haystirin ugu baad u tahay weli ayaankaagu kuma maqan qaybka aamin oo samir nasiibka ma yeelan ama adiga kuma nicin waa amar ilaahay keenayna waata heestaasi dabcan dareen bay huwan tahay sida erayadeeda aan ka dhadhamin karo waa wiil iyo gabadh isjeclaa oo heshiis ku ahaa inay nolosha wadaagaan haddii ay u suurta gasho hase ahaatee calafkii wiilkii u soo baxay oo uu gabadh kala guursaday gabadhiina markaa uu dardaaran uga tegayuu leeyahay nacaybigamay ahayn arrintan iyo dee qadar baa dhacay aadna maaragtay calafkaaga meel kale allaha kaaga safro soo maha ha adeege adaan urkayga nicin utuniyo colaadiyo nafsiigu ihaamayn qaybka aamino nasiibkaama
وسي أمر إلهي يفتح عينا نسوينا على بعديجي أضان مركيجا نعين عوتني وعراديو نفسي يقول إلهامين غيبك آمنو صبر نسيبك عمئينني عنا أديك كمنعين وسي أمر إلهي يفكار عينا نسوينا. heestaasi ayaanu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaanba barnaamijkeennii cawayska washington waa inooyo toddobaadka dambe inta ka horraysana sidaa iyo ammaano allah. ifkaa laba iswaayayo itaadu gabo kala oo qayba badan haysab garaashadeeni nasiibka ideeyo ayeheni gabay haysab garaashadeeni nasiibka ideeyo ayeheni gabay ayeshe adduunyada urugyo dhiba isbadin ugubaadu tahay weli ayaankaagu ku maqan qaybka aamino nasiibka ma iilani anna adiga kuma nicin wase amar ilaahay yifkaa caynan isweynaa ayeshe adduunyada urugyo dhiba isbadin ugubaadu tahay weli ayaankaagu ku maqan qaybka aamino samir